Assalaamu calaykum. Waa muuqaal cusub oo aynu ugu talagalnay in aynu kaga hadalno cunwaan aynu u bixinay kalsoonida nafta. Qofku in uu naftiisa ku kalsoonaada waxa weeye in uu aamino awoodaha, astaamaha iyo qiimeynta arrimaha ee uu leeyahay. Kalsoonida naftu waa shidaalka ina gaarsiinaya waxa quruxda badan ee aynu ku fakarayno. Kalsoonidu waa sumadda iyo astaanta inoo suurta gelinaysa in aynaan guulaha adduunka uga hadhin kaliya inta isku dayaysa, ee aynu inaguna go'aansano gaadhidda dhabaynta guulaha kala duwan ee aynu gaadhi karno ayaamaha yar ee nafta ammaanada ah ay inagu jirto. Guulaha cibaadada, guulaha aqoonta, guulaha ganacsiga, guulaha hal-abuurka, guulaha waxqabad iyo ka qayb qaadashada badbaadinta bulshada. Kalsoonida naftu waa waxa aad ku ogaan karto kartida aad leedahay iyo qofka aad ka dhex tahay dadkaaga. Had iyo goor, qofka naftiisa ku kalsooni waa mid yididiilo badan oo rajo weyn ka qaba in uu dhabeeyo waxa uu dhadhabay ee qorshayaal ka dhigay. Dhanka kale, qofka kaalidiga ku ah ee aan naftiisa ku kalsoonayn waxa aynu arkaynaa isaga oo isku dhex daadsan oo aan ku joogsanaynin hal meel ee kolba meel isku qaadaya, kuna tala xumaanaya hawsha yar ee loo xilsaaray. Xilliga ugu fiican dhisidda kalsoonida nafta. Waxyaabaha kaa caawinaya kalsoonida nafta waxa ka mid ah: 1. Eegidda waxa aad dhabaysay. Waxaa jira waxyaabo fara badan oo aad ka gungaadhay una qabatay habkii iyo hanaankii ugu quruxda iyo qaayaha badnaa. Marka ugu sheekee nafta in ay wax qabatay, adiga oo aan halkaa ku istaagayn ee sii filanaya xaqiijinta waxyaabaha quruxda badan ee aad dejisatay. 2. In aad dejisato qorshayaal aad u socotid markasta ka gungaadhidooda. Waxaana jira muuqaallo dhowr ah oo aan hore uga diyaariyey himilooyinka iyo hadafka, kuwaas oo aan linkooda soo dhigi doono kommentiga ugu horeeya idam alle. 3. In aad nafta ugu sheekayso hab ay ku jirto tognaan iyo filasho wanaagsan oo aad waxyaabaha soo socda ka filanayso wanaag iyo raynrayn. 4. In aad naftaada danayso oo aad tababarto adiga oo ku tababaraya aqoonta iyo akhriska. 5. In aad ka qayb qaadato arrimaha bulshada iyo waxyaabaha loo wado danta diinteenna, dadkeenna iyo dalkeennaba. Waa Sakariya Haaruni oo idin leh inta aynu muuqaal kale ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.